kulan ballaaran oo ay maanta ku yeesheen magaalada Laascaanood qaar ka mid ah odayaal dhaqameedada iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayo gudoomiyaha golaha baarlamaanka Soomaaliland Baashe Maxamed Faarax oo ay weheliyaan xildhibaano ka tirsan labada gole ee gurtida iyo baarlamaanka Soomaaliland iyo wasiiro maamulka gobolka Sool ay kaga hadleen arrimo quseeya ammaanka magaalada Laascaanood. kulankaasi oo saxaafadu dibadjoog ka ahayd ayaa markii uu soo gabagaboobay waxa saxaafada la hadlay gudoomiyaha golaha baarlamaanka Soomaaliland Baashe Maxamed Faarax kaasoo sheegay in hubka ay sitaan ciidamada aan ahayn boolisku aysan la soo gali karin gudaha magaalada Laascaanood si loo adkeeyo ammaanka magaalada tan. haddaynan runta isu sheegin de waxba tari mayso si saraaxada loo wada hadlay ee aad iyo aad ku ammaanaya saraaxada amniga waa ognahay milisooyin badan baa jirta ama raanu ka soo saarnaa nin aan booliiska ahayn inuu qori la soo galay magaalada ama ciidanku doonaya ha ahaado hadduu ciidan yahay ciidan beeleed yahay hubka wuxuu soo dhiganaya controlka. intaasi kadib markii shirkaasi soo dhamaaday waxaa saxaafada la hadlay gudoomiyaha gobolka Sool Cabdi Khayre Dirir kaasoo ka warbixiyay ujeedka kulankaasi iyo baarlamaanka oo kala wakiilada iyo gurtida waxay yimaadeen xaaladda gobolka taagan inay darsaan oo dabagalaan daraasadeeyaan kadibna waxay ka qaban karayaan ay ka qabtaan iyagoo ku yimi talada iyo tusaalaha madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muse Cabdi waxay la kulmeen guddiga nabadgelyada heer gobol waxay la kulmeen hay'adaha dawladda dhammaantood wixii gobolkan ka hawlgala waxay la kulmeen laamaha amniga maantana waxay la kulmeen uqaasha gobolka iyo waxgaradka iyo odayaasha runtii shirarkaasi si wacan oo qaabka ay qorshaysteen ay ugu socdaan annagu maamul gobol ahaan waxaan ugu shaqaynaynaa oo aan haddii ilaahay kula shaqaynaa nidaamka iyagu ay wataan iyo qorshayaashii iyagoo xildhibaan Maxamed Jaamac oo ka mid ah golaha baarlamaanka Soomaaliland waxa uu ugu baaqay bulshada ku dhaqan deegaanada tan inaysan ka qayb qaadan colaadda ka jirta deegaanka Tukaraq halkaas oo ay isku hayaan Soomaaliland iyo Puntland. la baxaadnay cabasho dhinac walba ay way jirtay oo dadku ama ka cabanayaan maxaa dadka dhintay dadkii dilay wax looga qaban waayo loo soo qaban waayay ama maxaa dadkii la qabtay loogu fulin waayay wixii dilkii ay geysteen maanta laga bilaabo in si wada jir ah oo loo dhan yahay wax looga qabto aanu u wada jirno amnigu suuro geli maayo dadku maanta dagaal baa halkaa ka soconaya Tukaraq ciidamo ayaa hor fadhiya waa ciidamo dawladeed weeye dadka shacabka ay inaanay ka qayb gelin oo ciidamadaasi wax weeyaan dadka shacabka ay hawsha aanay gelinna wax weeyaan iyadana waan ka wada hadalay Faarax Dubaad goobjoog Laascaanood.